بسم الله السلام عليكم صلى الله عليه وسلم عليه وحرجينا في عندين سؤال maskaxdaada dhiso furaha mustaqbalka dhalinyarada weligaa ma dareentay inaad leedahay awood ka weyn intaad isticmaalayso oo ma isweydiisay su'aal maxay tahay awooddan xaggaysa ka imaad ma og tahay in maskaxdaadu ay tahay furaha ugu weyn ee aad ku gaari karto mustaqbalkaaga iyo riyooyinkaaga iyo inaad dhisato mustaqbal ifaya bal aan idinla wadaago sheeko yar waxaan xasuustaa gabar la dhihi jiray xaawo oo ku noolayd magaalada Kismaayo xaawo waxay ku kortay deegaan ay ka jireen caqabado fara badan dhanka waxbarashada ah deegaan aanan taageerin waxbarashadeeda iyo horumarkeeda fursadaha waxbarasho ay helaysay aad bay u yaraayeen dhib fara badan ayna kala kulmaysay laakiin saxaawo waxay leedahay maskax furan iyo go'aan adag waxay ahayd qof jecel inuu wax barto cilmi uu kororsado iyadoo ka faa'iideysanaysa buugaagta yar yar ee hesho iyo idaacadaha waxay xasuusan jirtay oo maskaxdeeda ka guuxi jirtay maamada Soomaaliyeed ee oran jirtay aqoontu waa hub doqonna waa cadow si joogto ah ayay u kobcinaysay maskaxdeeda xirfado cusub ay u baranaysay waxayna raadin jirtay ama ay dabagali jirtay inay wax ka faa'iido dadka waay aragnimada leh waxay internetka ka baari jirtay ama ka dabagali jirtay dadka waay aragnimada leh nolosheeda wax ku soo korinaya aqoon ahaan iyo xirfad ahaan u kobcinaya maskaxdeeda iyo nolosheedana waxtar ku soo korinaya maanta xawo waa gabar aqoon-yahanad ah lehna ganacsi iyada u gaar ah ku nool noloshii ay ku riyoonaysay aadna ugu faraxsan tahay kuna qanacsan tahay nolosheeda waa tusaale nool oo muujinaya in maskaxda dhisani ay tahay awoodda ku horseedi karta iyo furaha kuu furi kara albaab badan oo kaa xiran maskaxdaadu waxay awood kuu siinaysaa inaad ka gudubto duruufaha adag oo aad mustaqbal wanaagsan abuurto haddii aad u isticmaashay sidii saxda ahayd sidee ayaynu dhisan karnaa maskax adag oo waxqabad leh qodobada ugu muhiimsan ee dhismaha maskaxda ma ahan wax ku yimaada habeen iyo maalin waa safar joogto ah waa safar dheer oo joogto ah kaasoo u baahan dadaal iyo go'aan qaadasho adag waa kuwan qaar ka mid ah qodobada muhiimka ah qodobka koowaad waxbarasho joogto ah weligaa ha joojin inaad baratid wax cusub ha ahaato cilmi diini ah ama mid maadi ah xirfad ama luuqad waqtigeena casriga ah aqoontu waa bad aan dhammaad lahayn daraasaad ay samaysay macadka dhalinyarada horumarinta Soomaaliyeed sanadkii 2024 ayaa muujinaya in boqolkiiba 70 dhalinyarada Soomaaliyeed ay helay tababaro xirfadeed iyo waxbarasho joogto ah inay helaan fursado shaqo oo aad u wanaagsan noloshoodana ku filan qodobka labaad fikirka xasaasiga ah iyo xalinta dhibaatooyinka ha aqbalin wax kastoo lagu yiraahdo weydii su'aalo falanqee arrimaha oo raadi xalal hal abuur leh dhinacyo badan wax ka eg maskaxda furan waxay aragtaa fursado halka kuwa kale ay arkaan caqabado isku day inaad aragtid fursadaha aadna ka jeesatid caqabadaha cilmi-baaris kale oo ay samaysay koox cilmi-baarayaal ah oo ka tirsan jaamacadda Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in boqolkiiba 60 ka badan dhalinyarada ay u baahan yihiin horumarinta xirfadaha fikirka xasaasiga ah iyo qaadashada go'aamada adag qodobka saddexaad akhris iyo cilmi-baaris joogto ah akhri buugaag maqaalo iyo qoraalo kuwaas oo balaarinaya garaadkaaga kobcinayna maskaxdaada internetku waa il weyn oo aqoon ah ka faa'iideyso waxaa la yiri qofkaan waxba akhriyin wax badan uma kordhaan halka qofka wax akhriya uu kordhiyo noloshiisa qodobka afraad isticmaalka saxda ah ee tiknoolajiyadu waa seef laba af leh waxay noqon kartaa qalab waxbarasho oo cajiib ah ama waqti lumis baro sida loo isticmaalo baraha bulshada iyo ilaha kale ee internetka inaad u isticmaashid si togan oo u wanaagsan maskaxdaada iyo noloshaada si aad u hesho aqoon iyo macluumaad waxtar u ah maskaxdaada iyo noloshaada xog ayaa sheegaysa in ka badan boqolkiiba 95 dhalinyarada Soomaaliyeed ay isticmaalaan internetka 2025 taas oo muujinaysa haddii loo isticmaalo dhinac san ama dhinac wanaagsan waxtarka iyo saameynta ay ku yeelan karto dhalinyaradeena qodobka shanaad dabacsanaanta iyo la qabsiga adduunka si degdeg ah ayuu u socdaa wax walba way isbedelayaan baro sida loola qabsado isbedelada cusub loolana jaanqaado dunida noqo qof aan ku dhignin fikradihii hore oo la jaanqaadi kara casriga iyo waayaha qodobka lixaad caafimaadka maskaxda iyo jirka waa muhiim inaad daryeeshid caafimaadka maskaxdaada iyo jirkaaga iska ilaali walbahaarka xad dhaafka ah hel hurdo kugu filan samee jimicsi joogto ah maskax caafimaad qabta waxay ku jirtaa jir caafimaad qaba qodobka toddobaad kalsoonida nafta ku kalsoonow naftaada iyo awoodahaaga ha u ogolaan in cabsi ama shaki ay ka horjoogsadaan horumarkaaga iskaashato ma kufto waa mahmaha ina baraysa in wadajirku iyo isku kalsoonaantu ay noo horseedaan horumar ballaaran maxaa ka dambeeya dhismaha maskaxda taariikh ahaan wuxuu la soo bilowday cilmiga garashada cognitive science iyo cilmi baaris nafsi ah psychological development qarnigii 20aad kuwaas oo xoog saaray kartida maskaxda iyo awooddeeda diinta islaamka dhismaha maskaxda waa qayb ka mid ah horumarka ruuxiga ah iyo akhlaaqda iyadoo qofku loogu baaqayo inuu fikiro wax baaro oo uu ka miraliyo aqoontiisa dhismaha maskaxdu kaliya ma ahan in la helo aqoon cusub ee waa in la dhiso shakhsiyad dhammaystiran oo miisaaman waa inaan ogaanaa in qof kasta oo inaga mid ah uu leeyahay awood u gaar ah
taasoo uu ku gaari karo wax kasta uu higsanayo haddii uu dadaalo si saxan u hago maskaxdiisa. Waa inaan ka fikirnaa sidaan ugu gudbi lahayn caqabadaha ina hor yaala ee aan u abuuran lahayn fursado iyo horumar. Maskaxda furan waa furaha guul walba. Aragtida Islaamka, dhismaha maskaxdu waa qayb ka mid ah cibaadada iyo horumarka qofka. Quraanka Kariimka iyo sunnaha Nabiga sallallahu alayhi wasallam waxay inagu dhiiranayaan inaan wax barano, aan fikirno oo aan isticmaalno maskaxdeena si aan u fahanno adduunka iyo abuuraha. آياتها القرآن كأي فائدين كموضوع قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولي الألباب ما سميهن كوها وحي قانا إيا كوها وحقوني كوها قونت له إيا كوها قون لعنتا آيادا وحي ساعد موجنيسا إن قيمها قونتا إيا قرشة مسكحيد مهمة إليهن وهذه رجلين عد وكوها دان اسمها مسكحدا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أبوراها سموهن كأي دولكا اسبدل كهبين كأي معلنتا waxaa ku sugan calaamado dadka wax garadka ah. Ayadan waxayna baraysaa inaan isticmaalno maskaxdeena oo aan ka fikirno abuurka Ilaahay, taasoo horumarinaysa fikirka xasaasiga ah ee qotada dheer, akhlaaqda iyo dabeecadaha wanaagsan ee muslimiinta. Dhismaha maskaxdu wuxuu si joogto ah u kobcinayaa akhlaaqda iyo dabeecadaha muslimka, kuwaasoo udub dhaxaad u ah shakhsiyadda muslimka. Daacadnimo waxayna baraysaa inaan daacad u noqono nafteena iyo dadka kale, maadaama ay maskaxdu ay tahay waxa aad u kala gali kartid waxa saxda ah iyo waxa kale. Ixtiraamka marka aad garatid qiimaha aqoonta iyo fikirka waxaad ixtiraamaysaa fikirka dadka kale xitaa haddii aad kala duwan tihiin. Dulqaadka horumarinta maskaxda waa safar dheer kaasoo u baahan dulqaad fara badan. Mas'uuliyadda waxaad noqonaysaa qof mas'uul ah oo qaata waajibaadka isaga saaran. Cadaaladda marka aad maskax ahaan korto waxaad garanaysaa qiimaha cadaaladda iyo sida ay muhiim ugu tahay bulshada. Faa'iidooyinka shakhsiyadeed ee aad ka heli kartid dhismaha maskaxdaada. Guul shakhsiyadeed waxaad gaaraysaa guulo shakhsiyadeed iyo kuwo xirfadeed. Saameyn bulsho waxaad noqonaysaa qof bulshada saameyn leh wax ku soo kordhiya lalana tashado. Nabadgelyo maskaxeed waxaad yeelan doontaa maskax degan oo ka fog walwalka iyo walbahaarka. Horumar joogto ah abuurista fursado cusub waxaad abuuran doontaa ama aad heli doontaa fursado cusub oodan horey u arki jirin. Saaxiibayaal, dhismaha maskaxdu waa maalgelinta ugu weyn aad naftaada gelin karto. Waa safar aan dhammaanteen kaasoo u baahan dadaal joogto ah, laakiin samirihiisu uu yahay kuwo aan la qiyaasi karin. Ha u malayn in waxbarashada ay ku eg tahay dugsiga ama jaamacadda. Nolosha oo dhan waa dugsi. xasuusnow maanta waa maalin cusub oo aad ku abuuri karto nolol cusub, isbeddel dhabana aad kula imaan kartid. maxay tahay talaabada ugu horreysa aad qaadi doontid si aad u horumarisid maskaxdaada noloshaadana aad u beddeshid? Commentiga hoos nagula wadaag. aad iyo aad baad u mahadsantihiin asxaabtayda qaaliga. waxaynu ogolanaa videogan insha Allah. maca salaama.